السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalyaal mawduucan maanta waxa weeyaan waa xildhibaanada deegaanada ACC kaga jira dowlad golaha baarlamaanka ee federaalka. waxaad moodaa inay hadda xildhibaanada runtii intii maaragtay halkaa la geenayay lagama faa'iidin, si gaara xildhibaanadii ugu dambeeyey oo khilaaf badan. xildhibaanadii ugu dambeeyey waxaa qaar lahaa khaatumo, qaarna puntland bay ka tirsanay. marka khilaafkii dhexdooda ahaa awgii waxay noqdeen kuwo aan tayo lahayn oo dee wixii loo egmaday waxba ka qaban kari waaye. waqtiguna wuxuu ahaa waqtigii ugu xasaasisanaa oo runtii arrimo badan oo deegaankan maaragtay qorshayaal shirqool aan odhan karo ayaa ka socday oo lagu waday deegaanada. intaana dee dad iyagiiba iskhilaafsan, sidoodabana aan tayo lahayn oo dad aan tayo lahayn markii hore laga buuxiyo dee waxba waa qaban kari waaye. maanta sidaad aragtaan dad maaragtay runtii insha allah aan rajeynaya inay yihiin dad tayo leh ayaa soo galay xildhibaanada. bal horta intaynaan sii falanqayn halkan kiliibka yar daawada, waxa weeyaan waa shirkii ugu horreeyey oo ay isugu yimaadaan xildhibaanadan oo ka labada aqalba ka tirsan, kasoo jeeda kuwii aqalka sare iyo kuwii aqalka hoose. shirka ay isugu yimaadeen waa kale daawasho. iyo aqalka sare cali jaamac jangele oo ah xildhibaan ayaa ka warbixiyay sida ay wax u sulugsan yihiin. arrin soo noqnoqotay oo ku saabsan 11 kuraasida sanadka aqalka sare oo loo qoondeeyey beelaha gobolada waqooyi. waxaa nasiib darro ah in arrintaas xal munaasiba ilaa hadda laga gaari waayo. waxaa muuqata in dastuurku ogol yahay 54. maadaama dastuurku 54 ogol yahay, wax bedelana aan lagu samayn, waxay nala tahay in la gaadhay wakhtigii la wada fadhiisan lahaa ee beelaha dega waqooyi ay qaybsan lahayn, si cadaalada u qaybsan lahayn. sidoo kale Siciid Xasan Cismaan ayaa sidoo kale wax lagu xumaado ku tilmaantay in si qalad ah wax la isu daba mariyo. laakiin waxaan idin sheegaynaa ummadda Soomaaliyeedna aan wada gaarsiinaynaa meel kasta ay joogto, madashu kama aysan cadaalad falin inay dadka isku goyso ayay ka shaqaysay. sababtu waxa weeye go'aanka ay qaadatay waa go'aan iska soo daba noqday, waa go'aan aan laga fiirinin maaragtay deganaashihii iyo wixii wax loogu qaybinayay, waa go'aan aysan kala Soomaalinimo ah iyo midnimada Soomaaliya midna aysan kaga gaarin. marka way ku khaldameen. bini aadankana waxa fiican wax shaygu markuu ku khaldamo inuu maro dariiqii caadiga ahaa ee ummadda uu ku soo cesho. haddii ayaga ka talin waayeen inay dadka isku sii dhibaateeyaan, wax munaasabadoo laga gaarayo aan guul darro ahayn ma jirto. ugu dambeyn xildhibaanad Canab Maxamed Cilmi ayaa dhankeeda aad u dhaleecaysay saami qaybsiga kuraastan. waxaan rabaa in aan gudbiyo beesha caalamka iyo madasha iyo guddida doorashooyinkuba inay cad Soomaaliya ku qaybiyeen. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa lax waliba shirarka isdhigtaa lagu qalaa. goboladan Sool iyo Sanaag iyo Cayn meeshay isdhigeen baa lagu qalo lagu qaybiyey. Puntland 11 kursi bay la siiyey. 11 kursi waxaa la yidhi 3 Sool iyo Sanaag iyo Cayn baa leh. sideedii baa loo bixiyey oo way raaqaateen iyagu qaybtii lagu daray. qoladan kale ee tiraahda dhulkaas anaga lena 3 kursi baa lagu daray oo Sool iyo Sanaag la yiraahdo waxay leeyihiin anaga leh. dhulkaas gobolada waqooyi waa 5 gobol, 5 gobol la qolana waxaa degta beesha direed ee dir waqooyi, qolana waxaa degta beesha daarood ee harti ayaa degta bari. waxaan leenahay marka 11 kursi ee dawladda madaxda madasha iyo guddiga doorashooyinka
iyo beesha caalamku ay wada ogaayeen in la yidhi kuraastaa saddexdaa gobol sool iyo sanaag iyo cayn baa iskale arrintaas waxaan u aragnaa shacabka Soomaaliyeed muddo dheer ama 26 sano intii dhibka lagu jiray Soomaalida iyaga madaxdaaba isku leynaysa shacab dhibaatada madaxda horseeda dhibaatada beesha caalamka horseeda waayo sababtoo ah wax hargalay la qaybsaday in la yiraahdo haddana hal qoys oo goosashada dalkaba ma lihin Soomaaliya ma lihin in lagu qanciyo oo la yiraahdo ayadaa iskale ra'iisul wasaaraha ku xigeenku habeen walba way wada fadhiyaan oo way wada joogaan indhahana way ka qarsanayaan inay waxa saxda ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay dhexdhexaadiyaan xuquuq ay kala leeyihiin ee mas'uuliyadda loogu saartay inay sida saxda ahayd loogu talagalay inay u qaybiyaan marka waxaan leenahay haddii aan la boobi jiray dhulkaas oo shacabka dhulkaas aan loo boobi jiray dib loo boobi maayo dadkoodii baa u soo taagan xildhibaanadoodii baa u taagan 24 saac waxaanu ku celcelinaynaa kuraastaas 11 ah sidaas inay ahaato oo laalaato iyo in si sax ah sidii Puntland ay u qaybsay sideedii kale loo qaybiyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waaye saad u aragtaan waxaa weeyaan insha allah waxaan rajeynayaa inay yihiin dad maaragtay tayo fiican yeesha wixii ay dee kuwii hore hagradeen ama ay kasoo bixi waayeen maanta ka soo baxa oo qadiyaddii dalka isu taaga hadda saad maqlayseen dee waxay arrintii muranka la geliyey berigii dhoweed xasan sheekh dee ujeedadu kala ahaaba ujeedadee un qabyaaladeed bay ahayd waxba kale kama lahay waayo de Somaliland iyadii baanba jirin iyadii baanba meesha joogine see buu yidhaahdaa xildhibaanadii xagga ah loo raaciyo maba joogto iyadu Puntland haddii la hala raaciyo Puntland way joogtaa waa xaadir laakiin Somaliland aan meeshaba joogin oo iyagii dadkoodii loo doonayo cid wakiil ah ku dara waxay iska ahayd qabyaalad cad waa sidii sheekadii maaragtay maxay ahayd fiqishini kursiga fiqishini hala doono yani Soomaalida yani dhibaatada fiqishini waa reer ka mid ah dhaqan ahaan beesha dhulbahantu ka mid yahay wax dhibaato ah oo la dhex taalo oo aan isku afgaran lahayn ma jirto ma helaan kursi xildhibaannimo ma helaan fiqishini sababtu waxay tahay iyagu iyana ma dalbadaan sababtu waxay tahay way og yihiin beela ka waaweyn oo dhulbahanta baan weligood ba xildhibaan helin marka xasan sheekh inuu yidhahdo fiqishini kursi hala siiyo oo la simo ciise iyo gudabiirsi يعني waxyaaba qabyaaladu markay heerkaa gaadho yani wax yani wax laga khajiro weeye yani cudur bay noqonaysaa markay heerkaa gaadho cudur bay noqonaysaa marka oo weliba dee aan kuwii la fadhiyay amba la yaabanahayo kuwa ina cabdirashiid iyo cabdiweli runtii waxaa degan isla mandaqada waxaa degan beel ma jeerteen oo la yihahdo gahayle saddex laab bay ka badan yihiin fiqishini dee nimankii meesha jooga waxaad arkaysaa inay dadkan deegaanadan ka tagaa kursi doon uun iska yihiin iyagu may odhan meeshaasoo kursi hala siiyo laakiin xasan wuxuu yii gudabiirse iyo halala simo iyo maxay ahayd ciise halala simo fiqishini calaa kulli xaal fiqishini waa dad ka tirsan dhaqan ahaan beesha dhulbahante dhaqan is dhalay weye weligay wada deganayn iskumana hayno aanu wayna og yihiin beela ka waaweyn iyaga oo dhulbahantaada weligooda xildhibaan la helin una malayn maayo iyagu inay damac iyaga xaggooda ka yihiin ogyahay marka waxa weeyaan ninka la doonaya kule wadankan hogaaminaya weye de waxaas waad aragtaa yani wuxuu qaab muxuu umad hogaamin karaa ninka sidaa u fekeraya yani muxuu hogaamin see umada hogaamin karaa calaa kulli xaal iskaas markaan soo dhaafataa waxa weeyaan xildhibaanatan waxaan kula dardaarmaya anigu hawsha ugu horeysa maanta in nala gudboon oo wax laga qabtaa waa inay noqotaa wadahadalada tan laleeyahay Somaliland iyo Soomaaliya arrimahan kan qolka madow lala galay oo ilaa maalintii ay bilaabmeen qolka madow lagula jiray oo aad moodid laba qolo oo isu nacamlaynaysaa inay uun ka shaqaynayaan waxaan rabnaa arrimaha in wax laga qabto arrinta aad isu taagtaan maanta inay arrintaa tahay waxa ugu horeeya ee kow aan rabnaa waxa weeye yaa wada hadlaaya haddii sida la sheegaya ay tahay waqooyi iyo koonfur day waqooyi annagu waqooyi wax ku heshiisi ma jiraane qayb baanu ka nahay wada hadallada
waa in dadka iyagu fadhiistaan maaha nin dowladda fadhiyayo in naloo diro maaha la dadka gudaha odayadayada aqoon-yahankayaga dadka shacabka waddanka ku nool ee deegaankii ku nool waa inay matalaada qayb ka ahaadaan iyaguna qayb saddexaad ay ahaadaan oo wax matalaysa haddii la yidhaahdo waa beeshaysa oo sidaa loo caddayo marka annaka wax naga saarayna ma jiraan dee waan iska fadhiisanaynaa waa markaa qaylada waa daynayna soo maad garan laakiin in buste la huwiyo oo sheeko waqooyi oo marna la yidhaahdo ma idinku shaqadaa kuma jirtaan oo idinku xaggaatiin waxaa aqbali mayno waa inay arrimahan ay ahaadaan wax cad yaa lala hadlayaa yaa wada hadlaya wax cad waa inay ahaadaan xildhibaanada arrinta laga doonaya taa weeye inay maanta taa noo soo caddeeyaan yaa lala hadlaya wadahadalada yaa wada hadlaya soo maad garan in si shirqoola nala ku dul xisaabtamo oo xuquuqdaydii lagu qaato dee dooni mayno marka walaalayaal ha la caddeeyo arrintaas sidaad u caddayn lahaydeen ka shaqeeya khayr baan idiin rajaynayaa eeg waxaa fashilmay matalan doorkii sheekh shariif baa fashilmay oo hadda ninkan tarsan la yidhaahdo oo maalin dhaweyd fashiliyey isagoo islaa wax weyn baad samaynaysaa buu islahaa laakiin wuu fashiliyey waxa weeyaan wixii inaga laynoo sheekeynay wax ka duwan baa kasoo baxay oo yii siduu yidhi qorshaha iyagu uu ahaa isaga iyo sheekh shariif wuxuu yidhi qorshaha iyagu wuxuu ahaa in 10 sano waddanka laysku soo celiyo hadhowna afti laga qaado waqooyi soo maad garan hal khabiisnimaha yacni annaka aftida nala ka qaadaya iyo 10 sano in laysku soo kaayo maxaa isku kaaya xidhay sidii Suudaan baa la sameeyay la Suudaan qadiyad gooniye ma ahayn qadiyadeedii oo kale inama midihin qadiyada Suudaan dadkan reer waqooyi waxba kama dhaxayaan gobolada waqooyiga la sheegayo waqooyi waa badan yahay waqooyi min Buurtile ilaa wixii ka sareeya baa la yiraahdaa waqooyi hadday soo jeedaan waqooyi galbeed isagaan waxba ku heshiisahayn iskhilaafsan wax ka dhaxayn karaan ma jiraan hadallada waa in la soo wada fadhiistaa يعني كان لفتيس والله يا حسن انه كقعد كحوض الشيخ شريف الشيخ شريف كان مشكلة ده ابوها ايوه وحقر النمو هاي قبيالستين ادو حسن شيخ نموها رنتي حسن مرر بدنيه سوق قبليه انه بدنيه سو جوكسناي قبيالده هو يقال لكن مرر بدنيه سو جوكسناي ودنيه سخريه لكن انك قبيالستها حوق اقولنا عن لهين هو الشيخ شريف arrintana waa ninkii bilaabay isaga iyo ninka la yihahdo cabdiweli ayaa bilaabay arrintan lug weyn buu ku lahaa ninka cabdiweli la yihahdo waayo ninkii aqoonta lahaa ee wax garanayay buu ahaa ra-iisul wasaaraha isaga lug weyn buu ku leeyahay sida qorshaha mugdiga lagu geliyey wadahadalada marka waxba ku dheeraan maaye waxaan rabnaa maanta khilaafkii kuwii hore ay khaatimo dhex dhigtay meeshii ilaahay waa mahadii waanu ka baxnay waxaatiin xildhibaano isku wada duuban sidaanu aragno waxaan idiin rajaynayaa khayr waxaan noo rabnaa inaad qadiyadaha deegaanka kasoo dhalaashaan oo weliba ay taas ugu horeyso qadiyadaasu waxa weeyaan qadiyadda ugu horeysa aad wax ka qabataan in banaanka lasoo dhigo waryaa wada hadlaaya maxaa anaka yani xaggee baanu kaga jirnaa wada hadalada waa nin dowladda u shaqeeyo hadba la yihahdo waa lagu daraya wada hadalada waxba ka socon maaya sababta waxay tahay ninkaasu kursigiisu ilaashada waynu isbaranay Soomaali kursigiisu ilaashada kaa hore maaragtay sheekh shariif waxaa ku jira axmed aydiid baa ku jira oo ka qayb galay wada hadalada haddana dee waxaa la soo saaray iyo wuxuu inoo ku sheekeynayay kala jaad bay ahay waxaa tirsan hadda fashiliyey iyo wuxuu isagu inoo ku sheekeynayay kala jaad bay ahay marka walaalayaal arrimaha waa inaad soo caddaysaan khayr baan idiin rajaynayaa iyo isku duubni inta kasii weyn iyo amuuraha dee dhulkeena oo aad maaragtay wax weyn ka qabataan khaatuma way ka xumaayeen waxay lahaayeen xildhibaanadii dad baa loogu faatixay cid looguma faatixin xildhibaanadan waxaa soo xushay odayadayadii waxgaradkayagii garowgaha lagu soo xulay laakiin waxaa ka dambeeyey soo xulay halkaa geeyey odayadeeda bay ahaayeen xasan sheekhna ma geyn cabdiwelina ma geyn odayadeeda geeyey isimadaa geeyey halkaa in lagu soo xulo oo si deganaansha ah oo dad maaragtay wax wada qabsan kara oo maaragtay dee wada shaqayn kara in halkaa laga soo doorto khayr baan idiin rajaynayaa kulan dambe wacan subxaanaka allahuma bixamdika astaqfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu